munaasabadani oo ahayd mid lagu shaacinayay Yuusuf Jicsin Mire oo ah xildhibaan u taagan golaha wakiilada Soomaaliland ee lagu waday inay dalka ka qabsoonto sanadka fooda inagu soo hayay 2019 haddaba madashaasi waxaa ka soo qayb galay xogayaha warfaafinta xisbiga Ucud gudoomiyaha suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa iyo waliba qaybaha kala duwan ee ururada mudan iyo marti sharaf aad u tiro badan haddaba ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Yuusuf Jicsin Mire oo ka waramay waxyaabaha uu qaban doono bulshadiisa baaqna u diray xukuumadda uu garwadanka ka yahay Muuse Biixi Cabdi waad ku mahadsantiin waxaad iga aaminsantiin aad sheegteen laakiin taas iga dhigimayso inay naftaydu cajab geliso oo waxaan ahayn aan ismoodo taas iga dhigimayso aadna waad u mahadsantiin mudanayaal iyo marweyn sida dulucda xafladu daaran tahay wax badan baa laga hadlay anigu waxba ku dheeraan maayo xafladan wuxuu baan ka sheegayaa xafladan inay aad uga duwan tahay xafladii aynu arki jiray hawlo badan aad lahaydeen maalmo iska fasax la gelayo oo fasaxida aad u diyaar garoobaysaan ay ahayd inaad halkan timaadaan oo aad halkan soo fadhiisataan micno weyn bay sameynaysaa dhiirigelin bay siinaysaa hamigaygu kordhinaysaa inaan idin shaqeeyo oo idin adeego mustaqbalkiina inaan ka shaqeeyo suuq sidan ka qurux badan inaad ku noolaataan haddii ilaahay ii ogolaado ayay ifaraysaa anoo ka qaadanaya sidaad waqtigiina u soo horteen saad halkan u soo fadhiisteen xafladana u soo ajiibteen una soo agaasinteen ilaa maamulkeeda u lahaydeen aad baan idinku mahad celinayaa waxaan intaa ku darayaa suuqan aynu joogno waa suuq aad u ballaaran noloshiisu xaaladiisa waa annaga isaga warranay waxa jira suuqu markuu intaa leeyahay dadka imanayaana dad hadanahoodu kala duwan oo aan dhaqaalahoodu aad u wada fiicnayn ay yihiin ummadaas waxay u baahan tahay ugu yaraan inay hesho isbitaal inay hesho waa laga maarmaan intaasi kadib asaguna waxa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha ururada dhalinyarada heer qaran ee horseed Siciid Xaashi Cabdillaahi asaguna halkaasi ka soo jeediyay hadallo dardaaran iyo dhiirigelin iskugu jira sheegay inay ka ururaan ay la garab taagan yihiin xildhibaankan isku soo taagay golaha wakiilada Soomaaliland hiil iyo hool labadaba aad baan ugu mahadnaqayaa ururada bulshada macnaheedu suuqa Waaheen sida quruxda badan iyo abaabulka fiican ay galeen iyo inay garteen in qabaa'ilka iyo qoqobnaantu aanay bulsho sii wadi karin waxaan aad u rajaynayaa oo ka horseed ahaan aanu si buuxda idin la qaadanay musharaxa golaha baarlamaanka Mr. Yuusuf si fiican baanu idin la qaadanay si ballaaran oo aad dareemi doortaanna waanu si garab taagaynaa haddaanu nahay dallada dhalinyarada ee horseed geesta kale asaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha suuqa Waaheen Mawlid Qowdhan oo dhankiisa sheegay inuu Yuusuf Jicsin Mire uu yahay nin lagu soo xulay aqoon iyo karti waxa laga yaabaa ninka lagu soo doortay dimuqraadiyadda iyo codka siman iyo waa ku tilmaamay waa nidaamsan caalamkuna sidoo wax ku doorto weeye laakiin kii tolaayda waynu aragnaa laguma gaarin guul in badan baynu ku dooranay hadday yiraahdeen aan bedelo nidaamkan kale aan yar ma garanaysa isagana caalamka kaga dayno aan wadnaanu waan taageersanahay ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay xogayaha warfaafinta xisbiga Ucud mudane Yuusuf Kaysi Cabdillaahi oo sheegay ka xisbihaan inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin Yuusuf Jicsin Mire waxaan baleynayaa Yuusuf halkana ka tilmaanteen kulliba aniga waxay qanciyay magaca laftigiisa Yuusuf qof khasaara loo ma bixiyo anigu waxaan ku raahdaa golayaasha deegaanka ee aynu dooranay caasimadoo kale ka soo qaada qof Yuusuf leeyahay kuma jiro hadduu ku jiri lahaa waxa isaga ka dhax muuqan lahaa baarlamaankuna sidaa kadalik halka waxa ka wada qirtay ninkaas inuu hogaamiye yahay haddaba idinka mid baan idin oranayaa Yuusufna mid baan ayaan oranayaa xukuumadda madaxweynaha hogaaminayana mid baan oranayaa idinka mid baan idin oranayaa oo waxaan idin oranayaa baashaasi waa baashii nala hadhay Soomaaliland maanta waxa halka ina dhigay qabiilka ma waa qabyaaladda qabiilka Ilaahay baa inoo dhaliyay
xumi laakiin waa qabyaalada baasha la yiraahdo isku soo wada duub oo dadkani madasha ka soo qayb galay ayaa dhammaantood iska daba maray inuu xildhibaankan u taagan golaha wakiilada Soomaaliland inaan lagu soo dooran qabiil ee uu yahay nin aqoon iyo karti iyo waayo aragnimo ay ku soo xusheen isla marhaantaasina uu ka shaqayn doono danaha bulshada waa Maxamed Xuseen Ibraahim SomNews TV magaalada Hargeysa